السلام عليكم magacaygu waa Laylo waxaana ay hooyo degan dalka Canada waxaana ay kalkaalisa caafimaad ganacsatana waan ahay anigoo adeegsanaya aalada internetka magacaygu waa Maria Maxamed waxaan ku noolahay London UK waxaan hooyo saddex caruur haysta sidoo kale waxaan leeyahay ganacsi online Assalamu alaykum magacayga waa Warda waxaan ahay hooyo Ingiriiska degan laba ciyaal baan haystaa online digital business waan haystaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجيء وحالي رصفيا وهان كنولا دالك إنجليز كمقالة لندن وهان أحي هو يلي هرولة وهان كشقايا أونلاين ديجيتال ماركتينج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجيء وحمد حاجة عبدي دقن إدمنتون كندا أخويا يحس مجيء وسهرة وحان سميا قناعسي أونلاين قناعسي قاسو يسهلي إنا سميو حل والبو ميل والبو أنجوبو إن مدة waxaan raadinayaa inaan bilaabo ganacsi online ah. Assalaamu calaykum magacayga waa Xaliimo waxaan ku noolahay Canada waxaan haynaa business online oo wax xirfado lagaaga baahnayn oo kaga shaqaysan karto meel kasta oo adduunka ah waxa kaliya oo laga shakhsiyan aniga ganacsigani waxaan u bilaabay inaan waqti fiican la qaato familygayga inaan aniga xor u ahaado waqtigayga iyo sidaan u isticmaalo iyo inaan u sameeyo dhaqaale ama holiday u bixiyo aanan boos ka qaadanayn fasax iyo wixii la mid ah reasonkan u bilaabay online digital business waxay tahay waxaan ahay nurse by profession so waqti ilmahayga maan u helaynin saacado badan baan shaqaynayay anigana guilty baan dareemayay sababta ganacsigaan bilaabay waxa ahayd inaan hornimo inaan helo meesha raban aan dhoofi karo ilmahaygina waqtigaas la qaado dhaqaalena soo samaysto waxaan ka faa'iiday businesskan wuxuu yahay in aan gurigayga income ka samayn karo waqtigayga xoraan u ahay at the same time aan samaysan karo anything else aan u baahanahay hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto shaqo kale everything aan ku dhex qaban karo marka businesskan aad ayuu ii caawiyay in times finan waqti fiican helo income-na helo at the same time and waxaan kaloon ka helay waxay tahay in aan ka faa'iiday skills badan and hadday noqoto xagga teknolojiyada skillskeeda hadday noqoto marketing skills marka waxyaabo badan ayaan ka faa'iiday businesskan waxyaabaha aan gaaray ganacsiga runtii isbedel ah financially waan gaaray alxamdulilah businesskan wuxuu igu caawiyay waqtigii aan shaqaynayay baan yareeyay hadda hal maalin bas aan shaqeeyaa ilmahaygii hadda aniga waxbara aniga gurigii la joogaa wuxuu i siiyey freedom oo waqti ah oon meel kasta shaqaysan karo oo insha allah waxaan rajaynayaa mardhow inaan ilmahaygii waddan muslima u guuro oon ka maarmo shaqadaydan full timeka ama professionalka ah si uu businesskan igu replace gareeyo earningkii aan ka qaadan jiray shaqadaas anoo meel kasta adduunka ka shaqayn karo haddaba maxaa lagaaga baahan yahay si aad u bilowdo businesskan kow inaad tahay qof isbedel doon ah ayna ka dhab tahay inuu noloshiisa wax ka bedelo labo inaad haysato aaladda internetka iyo telefoon ama laptop aad isticmaali kartid si aad uga raacdid trainingkaada iyo wax walba